waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bulshaweynta ku nool degmada Warshiiq oo maamulka degmada horkacayo. waxaan leeyahay wafdiga aan hogaaminayo sida qiimiga leh oo wanaagga iyo qalbi furaashada ku dheehantoodu soo dhaweyseen. waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin, ilaahay idinka abaalmariyo. waxaa kaloon ka mahadcelinayaa isku duubnida bulshaweynta degmada Warshiiq sida isugu duuban yihiin oo ay dhinac isugula jeedaan. waa uga mahadcelinayaa, waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. annaga ujeedkaynu safarkaynu maanta wuxuu ahay laba qaybood oo ahay mashaariicdan inaan dhagax dhigno iyo inaan ogaanno xaaladda guud ee ka jirta degmada Warshiiq. labadaas oo ahay ujeedkayna safarkayna labadaas qodob oo ahay. waxaan rabaa inaan iraado bulshaweynta degmada Warshiiq waad mahadsantihiin sida isugu duuban tihiin. mashaariicda wada aragtiin waa bilaaw. mashruucan dadku deegaankan ku nool waa laba qaybood. qayb waxay noloshooda ku tiirsan tahay badda iyo kalluumaysiga, qaybna xoolaha. maanta mashruucan waa mid ku saabsan badda, dhinaca badda ku saabsan waayey. waa suuqii maaragtay malayga iyo dhagax dhigii idana dayactir ka socda degmada. labada qaybood oo ahay insha Allah mashruucan waa ballaaran yahay. waxaa imaanaya insha Allah hadii la raalli ka noqdo qaboojiyaashii, waxaa imaanaya shabaagadihii, waxaa imaanaya doomankii. wax badan oo wax laga faa'iidi doono oo dhinacaan maaragtay agabkii loogu talagala badda waayey. insha Allah hadii la raalli ka noqdo mashaariicduna sidaana isu daba socotaa. hadday midda xoolaha tana way imaanaysaa, laakiin bulshada ku nool guud ahaan Hirshabeelle gaar ahaan degmadan hadda maanta aan ku sugannahay waxaa laga rabaa inay isku duubnaadaan. waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan nabadgelyada. deegaanku hadduuna nabadgelyo ahayn horumar ma imaanayo. waad arkaysiin Warshiiq horumarka ka socdo ee sanadba sanadka ka dambeeyo siday u ballaaranayso iyo mashaariicda waaweyn ee ka fulayso waxay ku timiday ilaahay amarkiis iyo nabadgelyada lagu dadaalay iyo dadkoo dhinac isula jeedo. waad ogtihiin Hirshabeelle degmo maanta konsalkeeda ay bulshada soo doorteen waxaa ka jiro degmada Warshiiq. kuwa kalena waa rajaynaynaa, laakiin dadaalkiina ay ku timiday bulsho isjecel, bulsho inay wax isla qaybsato rabto waxna qabsato ayaa konsal dooro karto. konsalka faa'iidooyin badan uu leeyahay, horumarka uu qayb ka qaadanayaa iyo qof idinku aad ku kalsoontiin inaad dooratiin oon dekereeta ku imaanin. faa'iidooyin badan ay leeyahay konsalku. waa rajaynaynaa degmooyin kale oo dhiman ee Hirshabeellena inay sida iyaguna isu dooro doonaan oo dad rabitaankooda uu ku yimiday ay hogaami doonaan haddii la raalli ka noqdo. aad iyo aad u mahadsantihiin. waqti kulul aad joogtiin, mashaariic badanaa is soo daba taallo. waxaa la idinka rabaa idinkana inaad ku dadaashiin nabadgelyada. deegaankan waad ogeedeen gogolaha hadda la soo laabay dib u heshiisiineed inaan colaad dambe iyo dhibaato dambe ina deegaanka ka dhicina la idinka rabaa. dadku waa dad walaala, waa dad ahala. waxa deeqana waxaa ka jiro diris wanaag iyo walaaltinimo iyo isxushmayna anfacayso. horumar ballaarana deegaanku waa gaarayaa. maanta walaalkaa inaad dib u geysataan adduunka kuma fiicno, aakhirana kuma fiicno. horumarkii socdana waa hor istaagayaa. waxaan idinka rabaa sidaad ugu dadaasheen nabadgelyada ha loogu dadaalo. insha Allah horumarkuna waa isdaba socoyaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. ballantaynu waa inaad saan isugu duubnaatiin, inaad nabadgelyada ku dadaashiin. insha Allah annaguna mar walba saan idinka warqabayna haddii la raalli ka noqdo. guuleysta. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.